maanta oo ay taariikhdu tahay 20kii bishii shanaad 2022 waxaan joognaa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaa maanta aan qabanay tartankii orodka ee Buuhoodle 2022 oo ay qabanayeen ururka Qaryada Quruxso oo ah urur ka shaqeeya horumarinta magaalada Buuhoodle iyo deegaanada runtii ku dhow tartanka haddii aan warbixin kooban aan ka bixiyo waxaa loo diyaar garoobayay bishan May ee hadda 20keeda maanta aan joogno waxaa ku tartamayay dhalinyarada deegaanka runtii waxa la yiraahdo da'doodu ay tahay 25 ilaa 35 tirada dhalinyarada tartankan ka qayb galaysay waxay ahaayeen 40 dhalinyaro ah oo runtii muddo 20 casho ah tababar iyo wacyigelinba la siinayay maantana ay dhacday in uu tartankii noo qabsoomo waxaan u hambalyeeynaa guud ahaan dhalinyaradii ka soo qayb gashay orodka oo runtii qaadan doona bilado in ay yihiin orodyahanno si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee galay runtii waxa la yiraahdo ujeedka tartankan u qabanay koow wuxuu ahaa in la helo in la ogaado in Buuhoodle ay nabadgelyo tahay horumar uu ka jiro runtii lagu qaban karo tartankan iyo tartamo kale sidoo kale in aan helno cabdibilayaal bedeli kara waxa la yiraahdo cabdibilayaashii hore ee runtii jiray ee orodyahanada ahaa intaasina maanta ay way muuqataa oo anaga halkan ku soo saarnay ama ay ka muuqdaan dhalinyaro orodyahanna ah insha Allah haddii alla idmo ka urur ahaan waxaan u taaganahay mar walba ka shaqeynta horumarka deegaanka sectorskiisa kala duwan insha Allah haddii alla idmo barnaamijyo ballaaran oo kuwan ka dambeeyana waa soo wadnaa waxaan guud ahaan reer Buuhoodle qurba joog iyo qaybaha kala duwanba ugu baaqayaa in ay ururka la shaqeeyaan in ay ururka taageeraan xoog iyo maalba waxa ay ku taageeri karaan waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii garsoorayaasha ah ee tartanka qaybta ka ahaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa suxufiyiinta quruxda badan sida quruxda badan ee caalamiga tartanka runtii u duubtay iyo dhammaan hay'adihii iyo institutionadii ka qayb galay barnaamijka tartanka inta aan wadnay insha Allah haddii alla idmo waxaan rajaynayaa in aan intan iyo in ka badan oo deegaanku u baahan yahay in aynu si guud oo wadajir ah u qabanno waxaan ugu dambeyn u mahadcelinayaa dhalinyarada tiimka qayb ka mid ah oo dalka dibadiisa joogta gaar ahaan wadanka Mareykanka oo barnaamijkan maalgelintiisa iyo dhaqaalihii waxa la ku baxayay runtii waxa la sameeyay dhalinyarada kale qurba joogta reer Buuhoodle waxaan leeyahay kuwa ku daydo ururka taageera oo barnaamijyadiisa ka soo qayb qaata insha Allah haddii alla idmo hadda waxaan guddoonsiin doonaa ajaa'isooyinkii oo isugu jira bilado iyo lacago la guddoonsiin doono dhalinyaradii kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidamada booliska oo sida quruxda badan markii ugu horeysay barnaamijkan oo deegaanka laga qabanayay oo tartan ah ka qayb qaata